isla qaadanay in sharciyadeedii loo dhammaystiro oo hadday liisankii tahay hadday buuggii tahay hadday kala wareejintii tahay in ay nagala shaqeeyaan waxaan guddiga uga mahad celinayaa sida fiican ay noo soo dhaweeyeen sida fiican ay noola qaateen ay noola hawlgelayaan aynu fahansiinayn bajaajtu buuggaa leedahay liisankii gobolka laga heli karo oo adeeg kasta oo qofkii markii cashuur laga qaado oo adeegii gobolka ka helayo taana aan isla fahanay maadaama ay wasaaraddii gaadiidku nala socoto wasaaraddii maaliyaddu aan isku dhammaystiranahay sida ay qayb ugu noqon lahaayeen inay iskaashatooyinka bajaajtu gargaar iyo horseed ay buuxiyaan dhammaan shuruucdii wadamarista kala wareejinta liisanada iyo taarikooyinka marka runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mas-uuliyiinta wasaaradaha khuseyso iyo maayarka ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaanada hawshan qaybta ka ahaa marka dhammaantayaba waxaanu isla qaadanay inaanu shuruucda iyada fulino si wada jira u fulino iskaashataduna waa nala qaadatay wasaaradda gaadiidka iyo hoggaankii ciidanka iyo wasaaradda maaliyadda iyo annagoo dowladda hoosaaba insha Allah si wada jira baanu arrinkaa u wada fulin doonaa isla qaadanay in sharciyadeedii loo dhammaystiro oo hadday liisankii tahay hadday buuggii tahay hadday kala wareejintii tahay in ay nagala shaqeeyaan waxaan guddiga uga mahad celinayaa sida fiican ay noo soo dhaweeyeen sida fiican ay noola qaateen ay noola hawlgelayaan aynu fahansiinayn bajaajtu buuggaa leedahay liisankii gobolka laga heli karo oo adeeg kasta oo qofkii markii cashuur laga qaado oo adeegii gobolka ka helayo taana aan isla fahanay maadaama ay wasaaraddii gaadiidku nala socoto wasaaraddii maaliyaddu aan isku dhammaystiranahay waxa weeye in dhammaan gaadiidkan bajaajta ah aan mas'uulka ka nahay in ay dhammaan sharciyadoodii maraan waxaan bajaajleyda gargaar farayaa dhammaan darawal iyo xaqlaba in liisanka gaariga marka hore la qaato marka labaad kala wareejin iyo cashuurtaba lagala shaqeeyo dawladda waxaan madashan u joognaa inaan ka warbixino kulan ka qabsoomay xafiiska maayar ku-xigeenka degmada Burco oo laga wada hadlayay fulinta ololihii la dagaalanka sharci darrada gaadiidka ee bilaabmay 12 bisha 10aad 2025 sida ay qayb ugu noqon lahaayeen inay iskaashatooyinka bajaajtu gargaar iyo horseed ay buuxiyaan dhammaan shuruucdii wadamarista kala wareejinta liisanada iyo taarikooyinka marka runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mas-uuliyiinta wasaaradaha khuseyso iyo maayarka ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaanada hawshan qaybta ka ahaa oo runtii muujiyay mas'uuliyad aad iyo aad u muhiima waana mahad celinaa sidoo kale waxaan mahad celinaa hoggaanada uu ka mid yahay hoggaanka ciidanka ilaalada cashuuraha oo isaguna runtii ah qof faham guud ka haysta cashuurtan ilaalinteeda iyo runtii hirgelinteeda aad iyo aad baad mahadsantihiin bulshada reer Burco ee sharfan muddada aan la joogno 10 cisho maadaama uu iska soconayo fulinta sharciga uu soconayo waxaan ku boorinaynaa inay gaadiidkooga sharciga waafajiyaan waxaan wadnaa hawsha ololaha la dagaalanka gaadiidka sharci darrada ee aanu ka bilownay gobolka Tagdheer dhammaan mas'uuliyiinta halkan isku timid waxa baryahan noo socday ilaa sanadkii taa ka hadhay ololaha la dagaalanka gaadiidka sharci darrada maanta waxaan la shirnay guddida labada guddi ee ay kala hogaaminayaan guddida horseed iyo guddida gargaar aad u mahadsan yihiin waxaan isla qaadanay qodobo dhowr ah inaanu sharciyadii bajaajta aanu maanta bilowno oo ay ka mid tahay liisan qaadashadii darawalka iyo lahaanshihii oo ah kala wareejintii bajaajta iyo road taxi oo ah cashuurtii wadamarista marka dhammaan tayo waxaanu diyaar u nahay oo aanu guddidaas la qaadanay inaanu maanta fulino sharciyada gaadiidka bajaajta in dhammaantood la dhammaystiro waxaanu kulan ku yeelanay xafiiska maayar ku-xigeenka gobolka degmada Togdheer labada guddi ah horseed iyo gargaar oo ah guddida bajaajta maadaama bajaajtu ay ka mid tahay gaadiidka waxaanu isla qaadanay in sharciyadeedii loo dhammaystiro oo hadday liisankii tahay hadday buuggii tahay hadday kala wareejintii tahay in ay nagala shaqeeyaan
waxaan guddiga uga mahad celinayaa sida fiican ay noo soo dhaweeyeen sida fiican ay noola qaateen ay noola hawlgelayaan aynu fahansiinayn bajaajtu buuggaa leedahay liisankii gobolka laga heli karo oo adeeg kasta oo qofkii markii cashuur laga qaado oo adeegii gobolka ka helayo taana aan isla fahanay maadaama ay wasaaraddii gaadiidku nala socoto iyo wasaaraddii maaliyaddu aan isku dhammaystiranahay wax kastoo looga baahan yahay gobolka adeeg kastoo gobolka qofkii cashuurtii laga qaaday adeegina ugu dhammaato haddii alla ka dhigo waxaan mahad celinayaa maayarka ku-xigeenka oo si fiican adigu xafiiskiisa kulankaa isku kaayo yeedhay hoggaanka ciidanka oo nala joogay iyo isduwayaasha hadday isduwaha maaliyadda tahay iyo hadday isduwaha wasaaradda gaadiidka tahayba markaa hawshaasi si fiican noogu dhammaatay ay guddidu nala hawlgeli doonto aan uga mahad celinayno hawshaa aan isla qaadanay fulinteeda in bajaajta maadaama gaadiid leydii ka mid noqotay aan sharcigeeda u dhammaystiro waxa weeye in dhammaan gaadiidkan bajaajta ah ee aan mas-uulka ka nahay in ay dhammaan sharciyadoodii maraan taasoo lagaga duulayo in ay yaraato shilalkii faraha badnaa ee la gelayey qofkiiyo dhugmanti saxa laga hayo maadaama iminka gaari tigta waxay dhacaysa marmarka qaar tig wax jiiraysa meel loo raaca aan la helay iyadoo ay taa ka duulayso waxaanu la qaadanay dhammaan maamulkan inaanu kala shaqayno dhammaan wixii sharciga baalmarsan inaanu sharciga kusoo daba anigoo ku hadlaya afka iskaashatada gargaar mas-uulkii u sarreeyey ah waxaan bajaajleyda gargaar farayaa dhammaan darawal iyo xaqlaba in liisanka gaadhiga marka hore la qaato marka labaad kala wareejin iyo cashuurtaba lagala shaqeeyo dowladda wixii garabay dowladdu intaa nooga baahatana diyaar aan u nahay kala shaqeynayno halkan maanta waxaanu ku qabanay kulan 3 geesood ah ama 4 geesood ah oo dowladda hoose wasaaradda gaadiidka wasaaradda maaliyadda iyo iskaashatada gaadiidleyda bajaajta kulankaasoo saakaanu kaga wada hadlaynay dhaqangelinta shuruucda dawliga iyo cashuuraha ku waajibay gaadiidka iyo nidaamka dawladdu ay u dhigtay ama wasaaradda gaadiidku u dejisay ama wasaaradda maaliyaddu ka rabto ama dowladda hoose ka rabto iyo iskaashatada oo qayba markaa dhammaantayaba waxaanu isla qaadanay inaanu shuruucda iyadaa fulino si wada jira u fulino iskaashataduna waa nala qaadatay wasaaradda gaadiidka iyo hoggaankii ciidanka iyo wasaaradda maaliyadda iyo annagoo dowladda hoosaaba insha allahu si wada jira baanu arrinkaa u wada fulin doonaa dadka iyo degmadaba waxaanu ku wargelinaynaa arrintaa iyadaa iyo gaadiidleydaba inay hoggaansamaan arrimahani waxay daba socdaan badqabka dadka iyo degmada iyo nabadgelyada iyo dee wixii lagu shaqaynayo aade cashuurtana in layska bixiyo gaadiidku iska bixiyaan iyaguna ay sugnaansho ku sugnaadaan dad mas-uuliyiin oo leesan haysto loo carbiyeyna ay gaadiidka kaxeeyaan kala wareejinta iyo liisanka iyo insha allah buugga intaba in laga helo intaasi waxay naga caawinaysaa in amniga sugmo oo qofkii wax ku dhacaan ama wixii haddii wax dhacaanba si sugan loo helo oo loo ogaado markiiba